kadib markii Axmed Madoobe ka booday tareenka uu sheegtay inuu wadso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. haatan waxaa isha lagu hayaa hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. inkastoo labada mas'uul ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland aanay isku duruufo ku sugnayn xagga amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda, haddana ma qarsoona khiyaanada iyo qosolka afka baarkiisa ee Koonfur Galbeed iyo fila Soomaaliya. Laftagareen waxaa hore u soo martay fursad uu kaga baxsan karay Xasan Sheekh nidaamkiisa uuna ku qabsan karay doorasho u gaar ah kamana faa'iideysan, balse hadda waxaa la soo warinayaa inuu samaysan karo ismiidaamo siyaasadeed haddii uu Xasan Sheekh Maxamuud aqbali waayo shuruudihiisa ka hor bisha Abriil qiimo walba ee uu kacdo. afarta qodob ee Laftagareen jawaabtooda uu ka sugay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta aan la gaarin bisha Abriil ee sanadkan ayaa kala ah: 1. in xukuumadda federaalka laga saaro wasiirada ka soo horjooda Laftagareen, si gaar ah wasiirada bartilmaameedka u ah Laftagareen waa Mukhtaar Roobo Cali Mansuur iyo Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac. 2. inuu Xasan Sheekh Maxamuud dhaxda soo dhigo xisbiga oo la cadeeyo saamiga reer Koonfur Galbeed, kadibna Laftagareen uu keensado xubno reer Koonfur Galbeed ku matalayo xisbigaas. 3. inuu isaga noqdo xisbiga Xasan Sheekh ku matalayo doorashada hoggaanka Koonfur Galbeed. 4. in aan ciidanka Itoobiya laga saarin magaalada Baydhabo, halkaas oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed. haddii Xasan Sheekh afartan qodob ka hoos qaadi waayo Laftagareen, waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku furmi doono furiimo cusub oo siyaasadeed oo aan degdeg loo soo daalin karin cawaaqibkeeda. haddaba sidee waragtaa adiga?